Asxaabta qaaliga ah kusoo dhawaada xalqadan maanta oo aan ugu talagalay sidii aan idin tusi lahaa kombuyuutarkaaga sidii aad u setup garayn lahayd wax kasta oo ama ababka ama programyada rangaraynaya sidii uu ku notify garayn lahaa ama uu ku ogeysiin lahaa. Marka xataa markaad meel aad click ku siiso waxyaabo oo changes ku sameynaya kombuyuutarkaaga ayuu wuxuu kuu sheegayaa sidan ma rabtaa yes or no. Marka security-kaaga u fiican tahay haddii aad aad daryeelaysid information-ka kuugu jira kombuyuutarkaaga ama aad rabtid in waxaanad ogeyn uu kombuyuutarkaaga ama laptop-kaaga uu ku sameeyo changes. Marka qaabab looga tagaa jira halkaas. Marka koowaad waxaan ku qoraynaa control panel xaggan search-ga. Markaad control panel ku qorto ayaa waxaad ku dhufanaysaa halkaas, kadibna waxaad tegaysaa system and security. Markaad ku dhufato waxaad tegaysaa security and maintenance. Marka waxaad ku dhufanaysaa change user account control. Settingkiisa tegaysaa. Marka halkan aniga wuxuu ii taagan yahay always notify me. Marka halkan waa recommended, welibana wuxuu ku leeyahay halkan oo kale marka aad wax soo download garaysid badanka ayuu option-kan u fiican yahay. Aad welibana booqatid website-o aanad garanayn markaasoo kale kuu fiican yahay, sababtoo ah waxaad ogaanaysaa uu kuu sheegayaa wax kasta oo kombuyuutarkaaga changes ku sameynaya ama wax ka bedelaya. Halkan baa jirta ayadana waxa weeyaan adiga kuma sheegayo marka adigu aad changes sameynayso, laakiin halkan wuxuu kuu sheegayaa marka uu wax kaleeto app uu changes ku sameynayo kombuyuutarkaaga. Halkan waxaa loogu talagalay marka aad booqatid ababaad garanaysid iyo website-da aad garanaysid iyo halkan la geystaa. Sida tan oo kale maaha, tan waxaa loogu talagalay meelo aanad garanayn. Xataa adigu marka aad changes aad ku sameynayso ayuu kuu sheegayaa, ayuu ku leeyahay sidan ma rabtaa. Marka halkan baa kasii hooseysa waxa weeyaan adiga marka aad sameynaysid changes aad kombuyuutarkaaga ku sameynaysid settingkiisa kuma sheegayo. Marka halkan wuxuu ku leeyahay not recommended. Halkan ma garanaysaa ma fiicna camal inaad ku xiratid. Marka adigu ma garanaysaa waxaad fiirinaysaa kolba adigu sida aad kombuyuutarkaaga u isticmaashid sida uu deeyahay iyo ma garanaysaa waxyaabaha aad ku click siinaysid iyo meelaha aad u kacdid iyo website-daas ayuunbaad kala dooranaysaa. Marka kolba option-kii kuu fiican. Halkan iyada waa meesha ugu hooseysa. waxabaha ay ogeysiinin camal ma garanaysaa waxabaha ay sheegin weeyaan. Marka wixii doonaa changes ku sameynaya adigii oon ogeyn oo marka waxba isagoo markaa kuma sheegayo. Marka xagga ugu sareysa haddaad imika geyso saas weeyaan, markasta iyo ogeysii kollaba ama taasaa lagu xidhaa haddii aad meel aanad garanayn booqatid aad click siisid, ama tan baa lagu xidhaa oo recommended. Labadan kale hoose iyo uma fiicna security. Marka halkaas marka waxaad click siinaysaa maadaama anigu waxaan rangaraynayaa as administrator. Markaas sida halkan ujeedaan waxaan ahay administrator. Marka haddaan imika waan sign out garaynayaa. account kale oon administrator ahayn baan tegayaa. Marka account-nadan kale oo dhan waxay hoos yimaadaan account-ka administrator-ka. Hadda waxaan u kacaynaa. Hadda habkan kalena waad ku fiirin kartaa marka aad rabtid inaad UAC-ga inaad soo saartid. Marka waxaad taaban kartaa oo kale waxaad ku qori kartaa user, kadibna waxa ugu sarreeya kuu soo baxa waa asagii change user account control. Marka waa halkaynu imika joognay. Imika muxuu leeyahay password-ku uu weydiinayaa, sababtoo ah anigu administrator ma yihi. Haddaan doono waxaan ku geli karaa account-kaygan kale aan imika ku geli karaa haddaan doono. Haddaan doonana administrator-kaas aan ku geli karaa, sababtoo ah account-nadan oo kale dhan waxay hoos yimaadaan administrator-ka. Marka that's why uu ii weydiinayaa password-ka, laakiin usually wuxuu ku weydiinayaa no iyo yes bas inaad ma garanaysaa aad continue garayso oo kadibna wixii waa un notify kaliya oo wax ma garanaysaa big deal ma aha. Laakiin aniga sidaan u setup garaystay baa noocana in
wixii aan administrator ahayn in uu i weydiiyo ma garanaysaa passwordka. So waxaan gelinaynaa hadda passwordka administratorka. wakaas hadda wuu ii furay, waan sii socon karaa, waxbaan ku samayn karaa. Okay, taa marka laga yimaado haddaan control panelka haddaan ku noqono tagno user accountska. Okay, waxaan idin tusayaa sida uu kuu weydiinayo haddii aanad ahayn administratorka, uu markasta uu ku weydiinayo xataa haddaad administrator tahay inuu yes and no inuu ku weydiiyay tahay. Okay, passwordka halkan ayuu i weydiinayaa markasta oon sameynayo changes, wuxuu i weydiinayaa in aan passwordka geliyo oon iscadeeyo waxaan ahay. So abka imika abka damca inuu wax bedelana saasoo kale u weydiinayaa passwordka geli buu leeyahay. Marka waxaan idin tusayay sidii aad u setup gareyn lahaydeen taas. insha Allah next time-kana sidii aad folderka iyo waxaas aad permission ugu samayn lahayd baan idin tusi doonaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.